بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال كسو دوادا جنالكيغا آمنة شيقونا haddii aad horey noola joogto naga mid ahayd waad ku mahadsan tahay muuqaalka fadlan like ii saar waadna mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir sidoo kale ka mid noqo asxaabteena maanta waxaa inoo wadaa qisooyinkii hore kuwo la mid ah laakiin midba midda kale way kasii xanuun badan tahay Gina, Daniel iyo Elena waa saddex qof oo walaalo ah oo ay kala geeyeen duruufaha adduunka. Gina waa gabadha weyn ee ilmaha ugu weyn saddexdan walaalood waana ayada qisada qofta ay ku socoto ama ay ka socoto 1995 waxaa dhalatay gabar la yiraahdo Gina waxayna ku dhalatay dalka Bulgaria magaalo la yiraahdo Vienna Varna ma qaan wax saamar laha ayay ku dhalatay kadib waxaa dhalatay walaasheeda Elena kadibna waxaa dhalatay walaalkeed kadibna waxaa dhashay walaalkeed Daniel saddexdaas walaalood iyo hooyadood iyo aabahood waxay ahaayeen family faraxsan oo wada nool kadib markii nasiib daro ay dhimatay ilmaha hooyadooda si aan la filanayn ay u dhimatay ilmihii hooyadooda kadibna markay dhimatay waxay u ahayd labada gabdhooda ka sii roonaayeen oo waxay caqli lahayn wax fahmayeen yani xaalad aad iyo aad u murugo badan aabahood wuxuu sameeyay wuxuu ku tuuray ayeedood agtooda ku tuuray kadibna waa iskaga dhaqaaqay jaaniya cirib meel loo dhigay lama hayo sida aabayaal badan oo Soomaaliyeed bay sameeyeen ilaahuna astur qisada murugadeeda meeshaan ka bilaabanaysaa waxaa dhacday Gina adeerkeed uu wuxuu u imaanayaa ayeedooda wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay 2 caruur kuwaasoo aan ku tuugsado meeshaas tuugsiga caadi uu ka yahay ayeedii dhakabay ku siisay ileen waa shaqo la isla yaqaaneen markay dhakab ku siisay way oyse gabadhii weyneed waa laga tagay labadii yaryaraa oo wiilkii gabadhii ka xistay markay ku oysay tiri walaasheed yareed Elena soo baxna raac waxay ku tiri ballan waa ku imaana Gina gabadhii weyneed waaye way u adkeysan weysay inay walaaleed ka maqnaato ayadana tuugsigii ayay la gashay waqtigaas waxaas ay dhacayaan sanadka waa 2002 waa waqti dhow sax 2002 markii hooyadood dhimatay ilmihii masaakiinta hooyadood dhimatay aabahoodna uu ka tagay adeerkoodna uu ku tuugsanayay talow xaggay ku kala dambeyn doonaa qisada dhexdeedan ku ogaan doonaa sida hore uga ballan qaaday walaasheeda Gina inay u tagto way u tagtay tuugsigii la bilowday maalmaha ka mid ah waxaa dhaxday booliiska ayaa qabtay Elena oo ayadoo tuugsanayso waa la qabtay waa la tuugsaa laakiin ilmaha saas u yaryar in lagu ay tuugsadaan looma ogolaan u malaynayaa waa la kaxeeyay waxaa la geeyay meelaha caruurta aan waalidiinta lahayn lagu haayo sidaan ognahay wadamadaas waa wadamo gaajo ah marka Yurubtan kale oo taajiriinta ah oo aqniyaaga ah ayaa u soo shaqo taga macnaha waxaan ka wadaa waxay imaanayaan kaamanka imaanayaan oo ilmaha agoomadii ilmaha oo la soo tuuray iyo ma aragtay ilmaha waalidiintood aan haynaynin iyo meeshay imaanayaan dadkan way shaqeynayaan lacag ay haystaan ilmay gadanayaan ama adaptive wax la dhahay sameynayaan cunug aadan dhalin ayaad qaadanaysaa markaad qaadato magaciisa kama bedeli kartid laakiin adaa aabba u noqonayo oo familkaaga loogu magac daraya aniga shiiquna allama aabay cunugaas waxa loogu magac daraa familka shiiquna la dhahay marka waa la soo kaxaystay Gina markii la soo waxaa qaatay family Jarmal ah soo qaatay Gina oo keensaday Jarmalka markay ahayd 7 jir way soo weynaatay maalintaas ilaa ay hadda waxay la nooleed Gina urugo ayay la nooleed okay Gina waaba ognahay family Jarmal soo qaatay kuwii kalena meeshii ku dambeeyeen waa ogaan doonaa Gina iskool ka baxday iyada nasiibkeeda
waxay heshay jarmalka ilmaha waa ka nasiib fiican yihiin ilmaha jarmalka dabcan haddii uu jarmal ku dhalay waayaa ama jarmal uu ku haysto waay ma aha ilmaha Auslanderka ama ilmaha ajnabiga ah yani waxaan ka wada sida ilmaheen oo kale waa isku mid ama ha ku dhashaan ama ha ku koraan waxa waaye jaanis fiican male jarmalka ilmaha joogo saas waaye yurubta kale waa ka jaanis fiican tahay jarmalka qumayaal waa cunsuriyiin waa ma fahanteen marka ma ku sii fogaanayno abaalna waa u haynaa jarmalka waa la joognaa ileene Gina nasiibkeeda wuxuu noqday waalid dadkan jarmalka ah iskoolay ka baxday nolosheeda dhag labadii kale ayaa marka waxay noqotay in la baadi doono marka Gina ayaa imaanayso waxay u tagaysaa kanaalka la yiraahdo Sat.1 la dhaho oo jarmalka laga leeyahay barnaamijkan waxaan ka soo turjumay Feminist barnaamij la dhaho mar walba oo idin xasuusinaya kanaalkaas ay ka soo codsanaysaa in loo raadiyo walaalaheeda Gina okay naagtii kanaalka ka socotay markii arrinta oo dhan u sheegto horta oohinaan ka dharga ani been idin sheegaa oohinaan ka dharga barnaamijka inta diyaarinaa aniga caloosha dhana xanuunto wallahi alcadiim hadi kadib waxaa waaye markaan sas u diyaari hore kama soo duubayo waxaa waaye oohinta markaan soo dhammaystaan soo duubi doonaa intaasna kaftan waaye igu qaata waxaa dhacday inay u safarto dalka Bulgaria inay u safarto magaaladii iyo meeshii booliisku ka qabtay Gina markii ay yarad ayadoo tuugsanayso waxay tagaysaa kaamkii lagu qabtay Gina oo la geeyay markii la qabanayayna waa la burburiyay ma jiro kaamkii tagaysaa booliiska waxay ka codsanaysaa magacyadaas in loo sheego maxaa dhici doono waxaa la leeyahay Gina waxaa adaptiif loo qaatay jarmalka loo qaatay gabadha yarta ahna wadankay ku jirtaa laakiin wiilka Ireland maxaa la dhahay loo qaatay asagana sidii gabadh walaashis loo qaatay saddexdii walaalood saasay saddex dal ku kala joogaan maalinba maalinsay u raadinaysay waxaa loo sheegay Elena inay ka shaqaynayso xeeb la yiraahdo xeeb hebel oo maarkano meesha oo magaalada ku taalo meeshay ka raadinaysaa say u raadinayso maalin meel u istaagayso maalin balbaab u garaacayso way weynaysaa Elena waa la soo weynaya qof yaqaano lama helayo nasiib daro waxaa la raadinayaa wiilkii waxaa la baarayaa wax allaali wixii caruur Bulgaariyaan ah oo wadanka dibadiisa loo qaatay oo familyo la kala siiyay عفوا انت سو مليون واي انت سو مليون وعرورة انت كاني ادي لكن نسيب هناك ويلكي waxaa la helay in Ireland loo qaatay oo family la yiraahdo hebel wax Ibrahim uu agu ahay ma karaaye hebel family la dhaho inuu qaatay waxaa dhacayso iyadoo gabadhii laga raadinayo Bulgaria Elena gabadhii yareed wiilkana in loo doonay Ireland loo doonay markii meesha loo doonay waxaa dhacday albaab sida loo garaacay xaafadba xaafad adreeskoodii hor way ka guureen kan way ka guureen saan way ka guureen ugu dambeyn asagana natiijo la'aan ayaa laga soo noqonaya kanaalka dadkii ka socday gabadhii ka socotay Julia la dhahaa Julia Laishik la dhahaa saxda ugu dhawaaqay waxay leedahay rajo xumo igu dhacday aad iyo aad uga xumahay waana ka soo laabanayaa meeshan waxba ka meelin waxay ku soo laabanaysaa dalka jarmalka ayadoon akhbaar fiican wadi maalmo kadib gabadhii u turjumaysay gabadha ugu turjumaysay ee Bulgaria kanaalka gabadhii ka socotay gabadhaas ayaa soo wacayso waxay leedahay arrintii waan sii raadiyay booliiskan weydiiyay gabadhii waa la isoo helay adreeskeeda ee akhbaar fiican aan ku haya Allahu akbar haye akhbaartii fiicneed markii loo sheegay waxay leedahay intaanan soo dhoofin mar kale fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad baxdid oo meesha tagtid iisoo hobsatid inay tahay gabadhaas gabadhii la raadinayay meeshay tagaysaa waxay leedahay Elena ma tahay adiga haay leedahay Elena ahay mukula dhashay wiil la dhahay Daniel waxay leedahay ma jirtay gabadheeda la dhalato la yiraahdo Gina haay leedahay iska weynaysaa xaqiiqatan waa oohin
dad walaalo ahoo masaakiin oo kala dhumay ama dad isdhalay dad isla dhashay oo kala dhumay oo yacni anaga ma sawiran karno keliya wax yacni aniga ma sawiran kari keliya waxaa sawiran kara arrinkaas xanuunka yacni ay leedahay dareemi karo qofkii ku noolaaday ani weli qof ma iga dhumin alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryayaa intay dadka dhunsan yihiin u sahlaan hadda waa aragteen barnaamijkan uu sameynayo wiilka la yidhaahdo cabdicasiis riyali inuu ahaan jeclahay ilaahay khayr ha sii barnaamij aad u fiican uu wadaa marka oo wallahi billahi calool xumo ah dadka dadkooda ka maqan yihiin ama hooyadooda ama aabooda ama walaalood ay waayeen sheekadii aan ku fogaanin natiijadii raba inaan idin sheego waxay leedahay gabadh saas laam kula dhalatay haa gabadhaas ayaan akhbaar idinkaga wadaay walaalkaaga aawo walaalkaaga ma nool yahay haa aawo asagana wuu ila joogaa waxayba noqotayba mufaajo ay noqotay kadis yacni ninkii laga raadinaya Iceland Ireland magaalooyin adduunyada laga soo raadinaya intooba iskaga noolyahay aba tartiib walaashiis uu la noolyahay maasha allah waxay leedahay meelna fadhiisiya walaashina akhbaar idinkaga wadaa walaashayna maan nool walaashayna maan soo raadsahaa waxay leedahay yacni ma u malaynaynin inay leedahay bismillahi raxmaan raxiim ku dhacay ma u malaynaynin inay leedahay walaashay nolosha inaan dib dambe u midoobi doono maxaa yeelay hooyadeena naga dhuntay ayadana way naga dhuntay waxay leedahay wax ma iiga sheegi kartaa maxaan ka xasuusataa waxay leedahay walaashay aniga banaanka guriga banaankiisa aad ugu ciyaari jirnay alla maxaan ciida ku ciyaaray xamar jajab reer xamar jajab waa idin salaam yaa akhay xaafadayda xamar jajab waa aan kusoo karay aniga arbacaadkaas waa iga cawaadasa ugu ciyaari jirle maasha allah marka waxaa dhacday waxay leedahay banaanka aad ugu ciyaari jirnay waan wada baashaali jirnay walaashay waxay ahayd gabar aad u fiican waan isjecleen hooyadeennana markay naga dhimatay qofta keliya oo noo hartay ayaday ahayd ayadiina waa weynay waxay leedahay arrintan waa arrin mucjiso ah inaan hadda dib u midownay annaga iyo walaasheenna haddii aad walaasheenna noo soo heshay walaasheenna raadinayso aadaan u faraxsannahay wiilkana sidoo kale uu leeyahay walaashinaan sawir idinka wadnaalee sawirka walaashooda la tusaa way ku dul oynayaan waxay leeyihiin hooyadeenay u eg tahay ilaahu rabbiyo intay hooyooyinkood dhimateen u naxariiso intay hooyooyinkood u nooshahay ilaahu rabbiyo raxmaan oo xifdi ilaahu hooyooyinkan ma xifdi yaa rabbi yaa raxmaan ilaahu cimri dhanaa subhana caafimaad taam noosi ilaahu rabbiyo raxmaan waalidiinteena yaa rabbi yaa raxmaan marka walaashada sawirkooda meesha lagu tusayaa way is arkayaan yacni way arkayaan cajaladii usoo duubayaan video usoo duubayaan ugu dambeyn family labadii walaalood wiilkii gabadhii waxaa loo soo wadayaa horta ma ka qasnaba Elena way iska aroostay Yurubtaas ma ogta waa anagoo kale ayagana Yurubta baahan waayo waqti hore guursadaan gabdhaha guurka qiimo ka leeyahay macna in gabadha guursato wax weyn u tahay nolosha 15 jir ay ku aroostay meeshan waa la iska duqoobaa Yurubtan lacagta yeelata waa iska duqoobay leeyaan ku dhaw waxa isku haysataa baby adigu waxa leedahay aniga ahaa maanaa weli weynaa markaas 40 jir lagu orda hal cunug iyo laba cunug wixii Ilaahay siiyay ma fahantaade ama qaarkood maba helayaane 50 sano soo miirsanaya markaasay u doonanayaan Afrika iyo Aasiyadan yar iyo maxal dhaha iyo Yurubtaas bari ilmo loo doonanayo ilmo dadow loo doonanaa ma la iska aroos inta la shaqeynaa marka waa la soo kaxaynaa Jarmalka la keenaya saddexdii walaalood sidii isku arkayaan nasiib darada kale waxay tahay gabadhan Jarmalka joogto afka mataqaana luqadooda mataqaano ka waran walaalahaagii intaasoo sano araadinaysay marka ay is aragteen luqad aad ku wada sheekaysatiin aysan jirin oo ku cilbaxdiin oo qofba qofka kale wuxuu qabo ugu sheegay haddii aysan jirin soo nasiib dara ma aha sidaasay qisadeeni kusoo gabagabowday saddexdii walaaloodna way is heleen alxamdulilah ugu dambeyn qisada waxaan u malaynaa inay ahayd 3 sano ka hor ay ahayd u malaynaa arrintan markii oo la soo bandhigayo oo walaalahana is helayaan qisadeeni meeshaasan kusoo gabagabaynaynaa walaalayaal haddii aad muuqaalkayga fiirsatay oo dhammaysatay aad iyo aad ugu mahadsan tahay qalbiga kaaga mahad celinayaa muuqaalka like noo saar hanaga ilaawin like-ta waa ogahay waxaa waaye aniga hataa mararka qaar markaan video fiirsanayo markii la xasuusiyo baan like saaraa marka saas darteed waa idin xasuusinayaa
ha iga ilaawina liketa ha iga ilaawina nagu soo biira asxaabteena ka mid noqda aad iyo aad waad u mahadsantihiin intaan qisadan iyo qiso leeg aan lamid aan ku kulmi doono weli kaamirada igu cusub laysku erayadii mawla karaayo intaasna ciyaar waaye intaan muuqaalka xay ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu